wasiirka cadaaladda Somaliland Jamaal Caydiid ayaa maanta kormeer hawleed ku yimid magaalada Boorama. wasiirka ayaa booqashooyinka gaaban ku soo maray meelo kamid ah qaybaha dawladda sida maxkamadda degmada, maxkamadda gobolka, jeelka hoose iyo stationka. wasiirka ayaa waxa uu warbixino gaaban kaga dhageystay mas'uuliyiintii ku sugnaa goobtaasi. kormeerkiisan uu wasiirka cadaaladda Jamaal Caydiid uu ku yimiday magaalada isla markaana uu ku booqday goobaha dawladda ayaa waxa ay mid uu ku eegayay habsami socodka hay'adaha dawliga sida maxkamadaha iyo stationada jeelka. waxa kale oo aad ugu koorgalay xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin dadka maxbuusiinta ah ee ku xidhan jeelka. waxa kale oo aad u indheeyay qaabka cadaaladda ee maxkamadaha isla markaana loo adeegsanayo dastuurka Somaliland iyo kitaabka Qur'aan. wasiirka cadaaladda ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu qanacay habsami socodka hay'adaha dawliga ah ee aan kor ku soo sheegnay. waxaanu sheegay in ay dadkii loo igmaday xilkani ay sidii loogu talagalay u gudanayaan kuna dardaar in ay wadada tooska bulshada ku hoggaan isla markaana ay u kala xanac walba. waxa kale oo dadka stationka jooga gaar ahaan askarta kula taliyay inay si fiican ula dhaqmaan maxbuusiinta isla markaana u tixgeliyaan muwaadiniinta Somaliland. Khadir Maxamed Xasan, shabakada wararka xigta magaalada Boorama.